Happy birthday to you. ورمشان ماذا يالا مشان dhammaantood anaa sharciga horgeynaya naftaada halis gelinayo ma jiraan waxaad yeelaysaa wasmaanta aad u faraxsantahay maxaa lagu sheegay waxu mudmacsan oo yani booliiskana uma sheegin oo asagaan u turaya diiriye aniga la hadlayo anigaba waxaan u xirnaa abtigii roble qays la hadal qolyahaas faraha ka qaaday hadda wixii ka dambeeyana haddii wax gaaraan anaa lay tuumaya sida ugu dhaqsiyaha badan galad waa in loo dhameeyaa maxaa kuu dhiman haddane rabaa sababta uu aabahay u dilay inaa ogaado kaligaa ha aadin isku badnoo awra meeshii hore ali celiyo ani dhigeyso sifaan ku maqlaa afartii afar ayaa isaa wiilkaaga waxa uu samaynayo baraaliga kaga tag maxaad macsanta cawdo niyo waa kula hadlay gurigan tartiib u joog soo ifaaninaysaa markaas kadib waxaan noqon salaan sare saaxiibayaal waa idinka raaligelinayaa mar horaa la rabay inaan muuqaalka soo dhiga laakiin cillad yar ay qabsatay anyway boqolkiiba waa ka xumahay iga raali noqda marka ma kusii dheeraanayno saaxiibayaal intaan muuqaalka bilaabin waxayna ka codsanayaa inaad channelka subscribe soo dhaadaan muuqaalkan anoo like garaysaan aad iyo aad u mahadsantihiin filimka usii gudagelinaa filimku waxa uu ka biloomanayaa odaygii lowkani oo afduubna oo la dilay oo yaala xeebta waxaana arkaya dhalinyaro xeebta waqti ku qaadanaysay sidoo kale waxay arkayaan inay xabad ku taalo halka kale waxaanu arkaynaa lowkan oo gurigiisa jooga ninkan maba ka qasnama baskooladu wax kusoo dilay ayuu hagaajinayaa waxa uu soo galaysa walaashiis duniya waxayna ku leedahay baskooladan maxaa waaye waxa uu sheegayaa inuu saaxiibkiis leeyahay uu haddana u wado waxay ku leedahay ninkii aabadili ma soo qabatay asna waxa uu sheegayaa inuu ninkaas uu iska daayo asaga waxa uu raacinayaa inuu raadinayo dadkii soo dirsaday asaga inuu soo qaban doono sharcigana uu la tiigsanayo waxayna ku leedahay is-ilaali halka kale waxaanu arkaynaa oday rooble oo soo xasuusanaya markuu familka u sheegayo inuu walaalkiis dhintay waxa uu sheegayaa inuu qarax ku dhintay waxaanu arkaynaa inuu gadaal ka qoslayo dhabta taagan hadda noo soo celiya waxa uu imaanayaa oday afrax waxa uuna ku leeyahay ii sheeg dokumentiyada meeshaad geysay waan kusii dayn doonaa isna waa uu ka diidayaa waxa uuna leeyahay laba mid soo gal inaani xorriyadeeda isiiso sacuudiga markaa taga kuu soo sheego iyo inaad gabdhahayga ii wacdid oo ayaga aan u sheego odaygu waa uu ka xanaajinaa waa uu iskaga soo tegayaa oday rooble markuu bannaanku imaado waxa uu wacayaa galad si uu ula kulmo laakiin isaga waa uu ka diidayaa la kulankiisa waxauna ku leeyahay telefoonka ayaanu ka wada dhammaysanaynaa waxaad u baahan tahay waxa uu ku leeyahay waa kugu fahmay sirta waxaad rabtaa inaa ishir qoosho aadna ma ii imaanaysid adna kuuma imaanayo duqa isagoo hadlaya ayaa telefoonka lagu jarayaa halka kale waxaanu arkaynaa maamulaha shirkadda fariin ayaa usoo dhacaysa qofta qosol ayayba ka bixi laadahayba xanta naga dabageeya waxaasaa lagu qoslaya wax yar maahane waxa uu soo gelaya qays waxaana uu sheegayaa inay maanta aada u faraxsan tahay iyadana ku leedahay shaqadaas intaas ka dhaaftid maxaa daran waxa uu sheegayaa inay galabta shir leedahay ay ogaato iyadana waxay ku leedahay waa isdiyaarinayaa waa uun iskaga tegayaa meesha halka kale lowkan oo guriga kasoo baxay waxaa arkaysa hooyadiis waayna u yeeraysaa waxayna ku leedahay maxaad wadataa isna waxa uu sheegayaa inuusan waxba wadanin waxay ku leedahay funaanada kor u qaad isna waxa uu sheegayaa inuu saaxiibkiis leeyahay uuna hadda u wado waxayna u sheegaysaa inuu iska dhaafo nimankaas uu ku daba jiro haddii kale asagay dilayaan ama asagaa wax dilaya warduniya maamada xanta soo gaarsiisay lowkan waxau ku leeyahay hayawa inuu iskaga tegayaa halka kale waxaanu arkaynaa oday rooble waxauu imaanayaa galad adeerkiis waxauna tusayaa muuqaalka cc kaamirada ay duubtay waxauna u sheegayaa inuusan weli booliska tusin odayguna waa uu ka raaligelin waxauna leeyahay abtigiis ayaa tahay waay uu sidaan kugu sameynayaa isna waxa uu leeyahay waxa uu igu tuhmayaa inaan ka dambeeyey afduubashadiisa adeerka waxa uu leeyahay aniga ayaa u sheegaya diiriye oday rooble waxa uu leeyahay wiilka abti ayaanu ahay waxaasna uma quuro marka uu maqnaa xataa wax badan ayaan raadiyey marka ay dhammaystaan wada hadalkooda waa uu iskaga soo tegayaa halka kale waxaanu arkaynaa duniya oo faraxsan waxay fariin u qoraysaa galadna waxa uu rabaa inuu la kulmo daahir galad waxa usoo dhacaysa fariin ay leedahay maxaa telefoonka iiga qaban weysay galad waxa uu la kulmayaa daahirna waxa uu u sheegayaa daahir waxa uu leeyahay wax dembiya melihi meeshana si gardaraa laygu soo xiray waxa uu u sheegayaa in dembi uusan lahayn dusha laga saaray waxaasna uu qays ka dambeeyey galad waa uu aamini la-yaa waxa uu maqlaayo asna waxa uu u sheegayaa
in uu abtigiisu afduubnaa. daahir hadalkaasna waa uu aamini layahay, waxauna leeyahay waxaasoo dhibaata ama abtiga ayaa kuu geystay. halka kale oday rooble qays waxa uu ku ballaminayaa xafiiskiisa, waxauna ku leeyahay galad faraha ka qaada. qays indha ayuu taaga, waa uu yaabayaaba, waxa uu leeyahay ninka ma heshiiseen iga dabagee. oday rooble waxa uu sheegayaa in uu adeerkiis u sheegay hadda kadib hadday wax gaaraanna uu asaga lagu tuhmi doono. waxa uuna leeyahay faryaa la saarin laakiin caddeyn bes inuu helo ka ilaaliya. halka kale lowkaan waxau la kulmayaa saaxiibkiis, isna waxuu leeyahay baasha issii, laakiin waxa uu sheegayaa in weli uu u dhiman yahay ninkii wax soo dirsaday amarkana lahaa. isna waxa uu sheegayaa ninkaas nin halisa inuu yahay uu iska ilaaliyo. waxa uu ka qaadanayaa furaha mootada, waa uuna iskaga tegayaa. dhanka kale mawliid oo qays uga cabanaya shaqada culeyska ka haysata, waxaa loo soo dirayaa sawir laga soo qaaday marka ay kulmayeen daahir iyo galad. waa uu naxayaa, islamarkiiba waxauu soo xirnayaa albaabka, waxauna wacayaa shiine, waxauna amar ku siinayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan galad loo dhammeeyo. sooti lagu dhayaa taabanin, kan aakhirka asaga odayga baxar gelin doona. kale lowkaan waxauu dabagal ku hayay shiine. ugu dambeyn duniya iyo galad waa ay kulmayaan. duniyana waxay sawiraysaa sawirka galad, isna waa uu ka helayaa, waxauna leeyahay farshaxanka hibe ayaad u leedahay. sheekaya kaftan waa is ammaanayaan. meeshana waxaa ka dheereen shiine oo galad ku raadinaya jaanis uu halmar ku dilo, iyo lowkaan oo shiine ku raadinaya jaanis uu ku dilo. isla markii shiine uu galad ku dhufto, isna waa ay ku dhegeen. markaas kadib waxaa noqon waad ku mahadsantahay daawashadaada muuqaalka. halkaas ayay ku eg tahay qaybtii 14aad. fadlan ha naga ilaawin subscribe iyo like. intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ka kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo maca asalaamo. bye bye.